saaxiibkii Cabdinaasir iyo madaxweynihii bedelay jihada waddanka Masar waxaa lagu naanaysaa geesiga dagaalka. reer galbeedkuna waxay ku sifeeyaan ninkii nabadda ee bariga dhexe. Israa'iil ayuu la dagaalamay dabadeedna waa uu la heshiiyey iyadoo ay ka hor yimaadeen taageerayaashii Cabdinaasir ikhwaanka iyo bacsiyiinta. carabtuna waxay ku eedeeyeen khiyaanole. Mareykankuna wuxuu ku sifeeyay caaqilkii Masar. Maxamed Anwar Saadaad ma wuxuu ahaa geesigii dagaalkii Oktoobar mise khiyaanole carbeed? daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. maxamed Anwar Saadaad wuxuu ku dhashay deegaanka Manuufiya ee dalka Masar sanadii 1918 isagoo ku barbaaray waddankiisa oo ku hoos jiray xukunkii gumaystihii Ingiriiska. wuxuuna ku biiray sanadii 1935 kulliyad ciidan oo ay lahaayeen gumaystihii Ingiriiska, wuxuuna ka soo baxay isagoo ah laba xidig leh. markaa kadib waxaa loo magacaabay magaalada Miqdaad ee koonfurta Masar, halkaas oo kula kulmay Jamaal Cabdinaasir kaas oo hogaamin doona dalka Masar, iyaga oo aasaasay koox kacdoon taasoo hadafkeedu koowaad uu ahaa ka xoroobidii gumaystihii Ingiriiska. waxaa la xiray markii ugu horeysay sanadii 1941 sabab la xiriira la kulankiisii joogtada ahaa ee aabihii ruuxiga ee kooxda Casiis Cali Misri, waxaana laga codsaday inuu xiriirka u jaro isagoo halkiisii kasii waday la kulanka iyo la xiriirka Casiis Cali Misri. kadib waxaa lagu xiray xabsiyadii gumaystaha sanadii 1942 isagoo xirnaa wax sanad ka yar. kadib bilaawashadii dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu isku dayay inuu la xiriiro dalka Jarmalka, taasoo ku gabagabowday fashil. Ingiriiskuna waxay ogaadeen qorshihii ay damacsanaayeen isaga iyo asxaabtiisa, isagoo markale xabsiga galay sanadu markay ahayd 1943 laakiin waxaa u suurto gashay inuu baxsado. wuxuuna u noolaa qaab qarsoodi ah isagoo ka shaqaynayay darwalnimo lana baxay Xaaji Maxamed ilaa dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. baxsashadii Saadaad kadib isaga iyo asxaabtiisu waxay sii wateen qorshahoodii, halka sanadii 1946 la xiray Saadaad isagoo lagu eedeeyay dilista mid ka mid ah wasiirada Masar ee Ingiriiska hoos joogay. magaciisuna wuxuu ahaa Amiin Cusmaan, wuxuuna xirnaa 2 sano ilaa ay ka cadaatay inuusan gacan ku lahayn dilkaas. kasoo bixistii Saadaad ee xabsiga kadib, Jamaal Cabdinaasir wuxuu gabagabo marsiinayay isku aadinta saraakiishii xorriyadoonka, wuxuuna fariin u diray Saadaad isagoo ka codsanaya inuu u imaado si uu uga qayb qaato la dagaalanka gumaystaha. halka sanadii 1952 uu bilaabmay kacdoonkii Masar, waxaana loo xilsaaray Anwar Saadaad inuu codkiisa idaacadda Masar kaga sheego inuu bilaabmay kacdoonka iyo inuu u geeyo Boqor Faaruq warqadii casilaada si ay xukunka ula wareegaan saraakiishii xorriyadda ee dalka Masar. kadib dhicidii kacdoonkii saraakiisha, wuxuu Saadaad soo qabtay xilal kala duwan, taasoo dhammaadkeedu ahaa inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka Jamaal Cabdinaasir. sanadii 1970 waxaa geeriyooday Jamaal Cabdinaasir, waxaana kusimo sii noqday Anwar Saadaad ilaa uu qabtay doorasho kuna guuleystay inuu noqdo madaxweynaha dalka Masar. sanad kadibna wuxuu xilka qaadis ku sameeyay qayb ka mid ah ciidanka kuwaasoo isku dayay inay afgambi sameeyaan. isla sanadka wuxuu sameeyay dastuur cusub, wuxuuna ka deeqtoomay 17 kun oo ciidanka Ruushka ah dhowr sababood aawadood, waxaana ka mid ahaa sababaha qarashka ay ku bixinaysay Masar iyo inay ahaayeen ciidamadii hore ee Midowgii Sofiyeeti. Anwar Saadaad wuxuu xilka qabtay waddanka Masar oo ku sugan burbur daran iyo khasaaro dagaal uu kala kulmay Israa'iil, waxayna Masar ku weysay jabkaas saxaraha Siinaa iyo Qasa. kadib dib u haweyntii dalka Masar iyo ka gaaftoomidii uu ka gaaftoomay ciidamada Ruushka, markaani Saadaad waxa uu jihaystay golaha sare ee ciidanka qalabka sida sidii uu ugu wargelin lahaa isku diyaarinta dagaal uu ku qaadi doono Israa'iil. sanadii 1973 wuxuu Saadaad heshiis la galay dalka Suuriya si ay dagaal ugu qaadaan Israa'iil una soo cistaan Masar iyo Suuriya dhulka ay ku waayeen dagaalkii 1967, waxayna ku heshiiyeen 6 Oktoobar inay noqoto maalintii uu bilaaban lahaa dagaalka. maalmahaasna Israa'iil waxay ahayd mid dhisanaysa leen difaac oo la magac baxay Barleef, waxayna ka dhisanaysay hareeraha kanaalka Suways. wuxuuna ahaa Barleef qad difaac oo ka qodan dhulka hoostiisa una adkeysan kara madaaficda, taasoo u saamaxday in si xorriyad leh ay u dhaqaaqaan taankiyada Israa'iil una duqeeyaan difaaca hore ee Masaarida.
sidaas oo ay tahay dagaalkii ayaa bilaabmay waxaana u suurto gashay ciidamadii Masaarida inay si fudud u burburiyaan difaacii Baarliif kana gudbaan kanaalka Suways taasoo ku xigtay Masar inay la kulanto guushii ugu horeysay ee ka gaartay Israa'iil waxaana Masar dib ugu gacan galay kanaalka Suways iyo Siinaa waxayna dalalka Carbeed u aqoonsadeen Saadaad geesigii dagaalka oo ka guuleystay cadawga Israa'iil kadib sanado badan oo guuldaro ah dagaalkii Oktoobar kadib waxay dadkiisu u aqoonsadeen haliyay kadib guushii uu ka soo gaaray dagaalkaas waxayna u suurto gelisay inay ku kalsoonaadaan shacabkiisu wuxuuna go'aansaday sanadii 1974 inuu wax ka bedelo qaab dhismeedka dalka wuxuuna ogolaaday inay maalgashtaan dalalka kale sidoo kale wuxuu ogolaaday soo laabashada noloshii dimuqraadiyadda iyo soo laabashada xisbiyada siyaasadeed waxaana ka dhalatay soo bixistii xisbiga ugu horeeyay ee siyaasadeed kaasoo la magac baxay Xisbul Wadani Dimuqraadi waxaana asaasay Anwar Saadaat oo madax ka ahaa sidoo kale waxaa soo baxay xisbiyo kale oo siyaasadeed markaa kadib wadanka wuxuu la kulmay qallaasooyin fara badan waxaana ku caansanaa qallaasihii la magac baxay sicir bararkii rootiga sanadii 1977 taasoo keentay inay dhacdo mudaharaadooyin kala duwan sababtuna waxay ahayd canshuurtii la saaray waxyaabaha asaasiga ah ilaa ay ka laabato xukuumadda go'aankeedii ay qaadatay Saadaadna wuxuu qallaasaha ugu magac daray gacaankii tuugada isagoo ku eedeeyay shuuciyiinta inay ka dambeeyeen arrintaas sanadii 1977 Saadaad wuxuu ka hor cadeeyay baarlamaanka Masar inuu aadayo Qudus iyo inuu heshiis la soo galay Yahuuda dhab ahaantii go'aankiisaas uu ka dhabeeyay sanad kadibna waxa uu aaday Mareykanka si uu soo saxiixo heshiiskii Camp David ee nabadda ee uu la soo galay Israa'iil kaasoo ka koobnaa 2 qodob kan koowaadna waxa uu ahaa heshiis nabadeed oo dhex yaal Israa'iil iyo Masar kaliya kan labaad waxa uu ahaa heshiis nabadeed oo ka dhaxeeya Israa'iil iyo dalalka Carbeed wuxuuna ku guuleystay inuu dib u hanto dhammaan dhulalkii Masar ee Israa'iil haysatay kalida uu galay heshiiskan Saadaad wuxuu ku hantay biladda nabad ee Nobel aadida uu aaday Saadaad Israa'iil iyo heshiiskii uu la soo galay waxay khilaafaad ka dhex dhalisay Masar iyo dawladaha Carbeed waxayna dawladaha Carbeed xiriirka u jireen dalka Masar sidoo kale waxay ka saareen ururka jaamacadda Carabta iyagoo caasimadda ka wareejiyay Qaahira una wareejiyay Tunis kadib shir ka dhacay Baghdad oo loogu soo bandhigay Saadaad inuu ka laabto go'aankiisaas iyadoo loogu bedelanayo garabsiin maaliyadeed oo gaaraysa $12 bilyan wuxuuna diiday Saadaad inuu ka laabto go'aankiisa isagoo ka doorbiday inuu sii wato heshiiskiisii kalinimo ee kala dhaxeeyay Israa'iil taasoo ku qasabtay dawladaha Carbeed inay u jiraan xiriirka dawladda Masar marka laga reebo dalalka Suudaan, Morocco iyo Oman sidoo kale dalka Masar wuxuu galay xaalad qallaaso taasoo ay shacabku uga hor imaadeen go'aankii uu qaatay Saadaad halka sanadii 1981 uu amray Saadaad in la fuliyo olole balaaran oo xarig ah taasoo kulansatay xariista ururada Islaamka iyo baadariyada kaniisadaha sidoo kale waxaa la xiray qoraayaal iyo saxafiyiin waxayna gaartay tirada dadka la xiray in ka badan 1500 oo qof taasina waxay ahayd bilowgii dhamaadkii Saadaad sanadii 1981 u dabaaldegista munaasabadda dagaalkii dhacay 6 Oktoobar ayaa 4 nin oo huwaysan waxay rasaas ku fureen Saadaad halkaas ayuuna ku geeriyooday isagoo dambe dahan ugu tagay dagaal ay ku guuleysatay Masar iyo heshiis nabadeed taasoo ay ku tilmaameen Carabtu khiyaano Saadaad wuxuu ahaa geesigii dagaalka mise khiyaano leh daawadayaal kulanti dambe oo xiiso leh